mowqifyo ceeb ah iyo siro halis ah xog sir ah oo sheegaysa in John Biden xilka uu iska casili doono ayaa soo baxaysa kadib markii ay bateen qaladaadkiisa madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa noqday qofka ugu badan ee lagu jeejeesa baraha bulshada gaar ahaan Mareykanka dhicitaankiisa isdaba jooga marka uu korayo ama ka degayo jarajarooyinka kala duwan xilli dadka Mareykanku ay mar walba fishaan madaxweynaha oo dhulka yaala sidoo kale waxaa sii xoogaysanaya wararka sheegaya in John Biden madaxtinimadiisu ay tahay magacuyaal waqti xaadirkana uusan ka talinin gudaha Mareykanka balse taasi beddelkeeda maamulka sare ay hayaan hay'ado awood badan oo hogaamiya Barack Obama kaas oo horey Mareykanka uga soo noqday madaxweyne Biden ayaana ku xigeen u ahaa Obama muddadii uu xilka madaxtinimo ee Mareykanka u hayay hadal haynta ah in Obama uu yahay shakhsiga sida hoose u maamulaya howlaha Mareykanka xilligan ayaa si weyn sare ugu kacday markii sawirradii ugu dambeeyay ee laga soo bandhigay John Biden xilligu uu qaadanaya irbadda saddexaad ee tallaalka COVID-19 la arkay isagoo ku qaadanaya qol muuqaal ahaan shabaha xafiiskiisa balse aan ahayn xafiiska dhabta ah ee loogu talagalay madaxweynaha Mareykanka inuu ka fariisto aqalka cad waxayna arrintaasi keentay in su'aalo badan la iska weydiiyo sababta Biden u jooga xafiis aan ahayn kiisii rasmiga ahaa arrimahaas iyo kuwa kale oo badan ayna ka mid yihiin xaaladiisa caafimaad aysan dhammaystirnayn kasii daba imaanaysana waxa ay keentay in xubnaha jamhuuriga xisbiga Mareykanku ay dalbadaan in Biden lagu sameeyo baaritaan lagu ogaanayo awoodiisa caqli ahaaneed iyo midda jireed inay hagaagsan yihiin natiijada ka soo baxdana si aan qarsoodi ahayn loo cilaamiyo dhakhtarkii hore ee aqalka cad Ronnie Jackson ayaa sidoo kale hore uga digay xaaladda caafimaad ee John Biden taasoo marba mar ka dambaysa ka sii daraysa Jackson oo waraysi xiise la siiyay kanaalka Fox News ayaa ku taliyay in Biden uu xilka iska casilo maadaama uusan waqtigan lahayn awood caqli oo uu ku maamulo Mareykanka shabakada Mareykanka laga leeyahay ayaa bannaanka soo dhigay awood yarida caqli iyo midda jirahaaneed ee Biden ayagoo soo qaatay dhowr tusaale oo ay ka mid yihiin dhicitaankii isdaba joogga ahaa ee markii uu Biden sii korayay janjarada diyaaraddiisa waliba 3 jeer oo xiriir u dhacay hadallada iska soo horjeeda ee inta badan ku hadlo inuu mararka qaar fikir iska galo waxay tusaale u soo qaateen muuqaalkiisii ugu dambeeyay markii uu fikir dheer galay isagoo oo masraxa saaran iloobidiisii magaca wasiirkiisa difaaca u qaabilsan wasaaradda taasoo dhacday bishii Maarso ee sanadkan Biden ayaana aqoon waayay magaca wasiirkiisa sidoo kale waxa ay soo bandhigeen qaladaadkiisa faraha badnaa xilligii ay socotay ololihii doorashada iyadoo uu Biden waqtigaasi xaaskiisa ugu yeeray walaashi sidoo kale waxa uu ilaaway magaca gobolka uu iska soo sharaxay waxay kaloo soo qaateen Biden markii gabadha ku xigeenada uu ugu yeeray inay tahay madaxweynaha dooran taasoo la yaab noqotay maadaama isagu uu ahaa madaxweynaha dooran halka Kamala ay ahayd ku xigeenkiisa tani ugu darani waxay ahayd markii uu John Kerry oo horey u soo ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka haatan ergeyga Mareykanka u qaabilsan dhanka cimilada uu sheegay in madaxweyne Biden uusan marnaba ogeyn heshiiska xiisadda dhaliyay ee gujiyada nukleerka ee Mareykanku ay la garan Australia kana careysiiyay Faransiiska John Kerry oo la socday wafdi uu hogaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken isla markaana ku sugnaa magaalada Paris si ay hoos ugu dhigaan xiisadda sii kacaysa ee u dhaxaysay Faransiiska iyo Mareykanka taasoo ku aadan heshiiska gujiyada nukleerka ee Mareykanku la galay Australia maadaama ay carqaladeeyeen heshiiska u dhaxeeya Faransa iyo Australia ayuu si cad ugu sheegay telefishinada Faransiiska oo waraysi la yeeshay in Biden uusan wax fikrada ka haysan heshiiska saddex geesoodka ee Mareykanka UK iyo Australia ay wada galeen inuu dhibaato ku yahay Faransiiska waxaana uu John Kerry yiri marnaba ma uusan ahayn mid og waxa dhacayay Kerry waxa kale oo intaasi ku daray in meherka heshiisku dhacay xiisaddu ay kor u kacday uu John Biden wax iga weydiiyay arrinta iyo sababta xiisadda Faransa u taagan tahay waxaan u sheegay ayuu yiri sida ay wax u jireen iyo in heshiis hore oo dhanka gujiyada nukleerka ka dhaxeeya Faransa iyo Australia hadda yaa maamulaya aqalka cad warbaahinta Mareykanka iyo baraha bulshada ee dalkaas ayaa si wada jir uga faalloonaya arrinka waxay isku raacsan yihiin maamulka aqalka cad ay gacanta ku hayso xukuumad toos ah oo hoose taasoo uu kor ka maamulaya Barack Obama
ilaa ay dadka qaar gaareen in muddaxileedkii John Biden ay ku magacaabaan muddaxileedka saddexaad ee Barack Obama. codayn ay samaysay shabakadda Fox News waxa ay wax ku weydiisay dadweynaha Mareykanka haddii uu John Biden dhamaysan doono muddaxileedka iyo haddii kale, waxaana uu codeeyay inuusan dhamaysan karin muddaxileedkiisa 4 sano ah dad tiro badan sabab la xiriira xaaladiisa caafimaad oo aad u liidata iyo isagoo da'si ah maadaama uu yahay 78 sano jir. haddii uusan iscalisilin xilka ma laga qaadi doonaa John Biden. ka bixitaankii Mareykanka ee Afghanistan oo xiisad kulul abuurtay, khasaaraha weyn ee halkaasi ka soo gaaray Mareykanka iyo sidoo kale burburka amni iyo midka siyaasadeed ee kan bini'aadantinimo waxay kor u qaadeen codka dadka dalbanaya inuu iscasilo madaxweynuhu ama la casilo haddii uusan istiqaaladiisa gudbin. hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee haatan mucaaradka ah waxa uu u ololeynaya in xisbigiisu ay taageeraan afti dadweynaha laga qaado taasoo lagu weydiinayo bandhiga iyo maamulka Biden. waaya buu yidhi, maadaama xisbiga dimuqraadi kuraasta aqlabiyadda haystaan, suuragal ma aha in dhanka baarlamaanka looga adkaado haddii aysan xubno ka tirsan xisbigaasi ka soo horjeesan Biden. sidoo kale hogaamiyaha xisbiga jamhuurigu waxa uu doonayaa doorashada qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ka dhici doonta sanadka 2022 in afdida lagu soo aadiyo kadibna laga shidaal qaato. waa haddii uusan ka hor muddadaasi John Biden xilka iska casilina. inkastoo ay adag tahay in John Biden xilka haatan laga qaado maadaama uu haysto aqlabiyadda golaha wakiilada iyo Koongareeska, haddana maadada afraad ee waxba ka beddelka 25aad ee dastuurka Mareykanka waxa ay dhigaysaa inay bannaan tahay in madaxweyne ku-xigeenka oo kaashanaya aqlabiyadda golaha wasiirada uu ilaamiyo in madaxweynuhu uusan awoodin sii gudashada waajibaadkiisa. haddii ay taasi dhacdana ku-xigeenka madaxweynaha ayaa toos ula wareegaysa xilka madaxtinimo. haddiise madaxweynuhu arrintaa ka biyadiido waxa xaaladda soo gelaya Koongareeska oo masalada taagan xalinteeda ka shaqeynaya. haddaba su-aashu waxa ay tahay John Biden ma iscasili doonaa, ma ku wareejin doonaa xilka ku-xigeenkiisa, mise wakhtigiisa ayuu dhammaysan doonaa. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska Nuureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.